بسم الله الرحمن الرحيم. Soomaali badan ayaa waxa ay weydiinayaan ka waran rajada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aad ogtihiin nin taageerayaal badan leh ayuu ahaa, nin la jecel yahay ayuu ahaa, wixii ka dambeeyay sanadkii 2017. laakiin wixii ka dambeeyay hadba qayb ayuu tuuray. haddii aan soo koobo hadalka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodbadiisii ugu dambeysay ee uu jeediyay xafladii uu sameeyay madaxweynaha maamul goboleedyada ayuu wuxuu ku cadeeyay in ninka uu rajo beelay, inuu ninka isdhiibay, inuusan ninka madaxweynimo u tartamaynin, in uu ninka xaqiiqsaday in maalmihiisii siyaasadda iyo shacbiyaduba ay dhamaatay. waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago, oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo. waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto. waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeennii uu lumo anoo ku adkaysanayo qof iyo codkii, maxaa yeelay sharci baan ku taaginahay, dastuur yaan ku taaginahay. iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay, waa boycott gareen. macnaheedu waxay tahay Somaliland de awal bay gaar u taagneyd, markaana inaan waayo labadooda kaliya maahee shantoodaba waa isla socdeen. aan idin sheegay runteeda waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horeysa isku hayo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabo badan ayaa baalaha ka rifay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku kacay waxyaabo dastuurka aan ku qorayn oo sharci jibina. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sameeyay wax loo yaqaan abaal-dhaannimo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sameeyay wax loo yaqaan kaligi tirasnimo, isla qabweynin, ismahadin iyo isbidid awood uusan lahayn. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa adiga saliite leexada ku sidatee hadba laan xuskanayay ayaa loo qaadayaa. maalmihiisu way tirsan yihiin. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii uu samayn jiray sixirkiisu iminka waa buray. haddii uu faani jiray faankiisu wuu soo aruuray. hadduu booto iyo qiyaal run u maleeyay sheekadaas way soo dhamaatay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa shimbir la qabtay iyadoo duulaysa, baalasha laga rifay oo aan kici karin haddii xagga la dhigo. marka shimbirtu inay saa u socoto may dhibic mahane biib bale kici mayso diyaaradda Farmaajo kici mayso. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taageeradii ugu dambeysay wuxuu lumiyay markii Xasan Cali Khayre oo 7 daqiiqo si sharci darro xilka uga qaaday. laakiin waa dhici kartaa madaxda Afrikaanka ama ninka Afrikaanka in been loo sheego waa lagu jecel yahay, waa lagu sitaa in la yiraahdo isaga run oo maleeyo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu galay godobo siyaasadeed, wuxuu galay tacadiye ka baxsan xaqul insaanka, wuxuu galay falal argoosi qabyaaladaysan. intaasuna waa inta ugu daran ee Soomaalidu ay meel kasta ku hadal hayso. soo qaad salahan Jubbaland ayuu isku dayay inuu burburiyo oo ciidamo ayuu geeyay isagoo qabiilkiisa abaabulay. galmudug ayuu dad ku laayay oo uu ku qasbay madaxweyne aan la dooran oo dimuqraadi ahayn oo diiday tartanka inuu madaxweyne ka noqdo. wuxuu buriyay ballamihii uu shacabka Soomaaliyeed u qaaday oo dhan, sidii inay wadooyin xiraad doonin oo baawar gadaal ka galaayo, sidii in qofkii qarax soo sheegay lacag la siinaayo, sidii inuu soo dhisayo maqaam gobolka Banaadir ee mataqaanaa in golo degaan doorasho ay dhacayso gobolka Banaadir ah, in mataqaanaa wuxuu sameeyay guri baan dhisayaa buu yiri, wuxuu yiri wadaniyad baan ka shaqeynayaa oo Itoobiya cadowgeena ah. intii waa beeniyay. Farmaajo wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee nin muwaadin oo halyeeyay oo gobonimada Soomaaliya u dhintay oo u dhaawacmay oo ehelkiisa loo dhameeyay. gabadh leedo Arda Sheekh Muuse gabadh leedo Ilaahay raxmadda ka waraabiyo. walaashii Arda Sheekh Muuse Ilaahay u naxariistay ayadoo hadlayso oo nool ayaa god inta lagu riday ay cadawga Itoobiya ku aaseen. maamulka Cabdiilay iyo cadawga Itoobiya ayadoo hadlayso oo nool ayaa inta la qabtay god la geliyay ayaa lagu aasay. waxaan loo aasay ay u dhimatay waxay ahayd qadiyad Soomaalinimo.
halgan Soomaalnimo ay ahayd in aana jigjiga laga xukumin Addis Ababa ay ahayd waxa loo dilay walaalkeed Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax darteed ayaa loo dilay godka halganka noocaas ninka Soomaali ugu jiray inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabtay oo Ethiopian u dhiibay meesha qoran diiwaanka waxaan isleeyahay qabashadii qalbi dhagax ay shacabka Muqdisho ka aamuseen oo ka soo banaan bixi waayeen oo ay dhacday in wiilkiisii yaraa oo hin ilinta socotay xaaskiisii magaalada Muqdisho ay dhex joogto dadkan u gormo waayeen ayaa waxay sababtay masiibadii qaraxii 14 Oktoobar cuqubadaasi ka dhalataas leh marka Farmaajo wuxuu sameeyay inuu dadka beerleyda ah beerahoodii uu ku weeraro oo yiraahdo waa shabaab uu laayo isagoo qabiil u beegsanaya waxa uu sameeyay inuu suuqa bakaaraha gubo wuxuu sameeyay inuu wadooyinka ka xiro wuxuu sameeyay in hadii ay dhimato aawo haday dhinto 100 qof oo hawiye haday dhimato inuu u tacsiyeyn hadii midkiisa uu ku dhinto Talyaaniga u tacsiyo dadku ay sugayeen ma ahayn wuxuu sameeyay in uu baydhabo xasuuq ka geysto wuxuu sameeyay in gudoomiye baarlamaanka uu xaqdaro ku rido sharci daro ku rido wuxuu sameeyay hab kaliya tarsnimo ah oo uu mataqaana ku maamulaya dalkii oo qofkii hadlana dilayo xirayo ayuu sameeyay wuxuu noqday hogaamiyihii ugu musuqmaasuqa badnaa ee yiri qof kasta oo dhaqameeda lacag loo qorlaalusha la siiyo nin kasta oo hadlo oo qaaqlaa bubul fitir lacag la siiyo ninka uu musuqmaasuq badnaa wuxuu noqday lugumood noqon soo weyday ayuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noqday mar kastaba dad baa ka goreeyay wuxuu Farmaajo shacabka Soomaaliyeed siiyay wax qabadkii uu ku faan jiray inuu ahaa wax qabad Shariif Sheekh Axmed oo san ahayn wax qabad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo ra'iisul wasaaraha ahaa sababtoo ah muddo ra'iisul wasaaraha ahaa hadduu wax qabad lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka Soomaaliyeed ayaa arki lahaa wax qabadkiisa markuu madaxweynihii dalka noqday ayaa la arki lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yimid magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ay caadi yihiin dhaqaalaheedu uu dhisan yahay ganacsiga dhulka ee ka socday iyo dhismaha yaabis buu yimid maantana waad arkaysaan wadooyinkii hadii naag ay foolato isbitaalka looma qaadi karo hadduu qof neefta ay ku dhigto isbitaalka looma qaadi karo waad arkaysiin wax walba waxay noqdeen zero meelka iska daa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yimid maamul goboleed dalka oo dhisan oo Jubbaland ugu dambeysay galmudug koonfur galbeed Jubbaland galmudug Hirshabeelle Puntland oo isjecel ayuu yimid waxayna la gaartay xaaladda in uu waayo hal madaxweyne oo taageersan xagga weerar xagga karid wuxuu noqday qof fawdista ah ma noqonin dadku waxay uu sacab tumayeen oo laga filayay inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhise inuu yahay wuxuu noqday burburiye ayuu noqday dad badan baa aniga waxay la yaabanaayeen markii anoo taageerayaashiisa ragga ugu waaweyn kamid ah 8 maalmood isagoo xilka u magacaaban aari maya Farmaajo bis khalaas hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeyn waa rajo dhigay waa isdhiibay wada ogol wax la yiraahdo qaatay wuxuu xaqiiqsaday inuu sida wax ku wadi karo culaysa meel kasta ka fuulay waa uu wareeray beentii loo sheegi jiray iyo qiyaaligii u isbiday hadii ka waran adigoo feerahaagu ay lafta fatay yihiin tamraas ku fiiriso astiraahdo qatar wallahi qofka feerto box dhifat ma shaqaynayso Soomaali xukuumadda futa aad lahayn lagu ma xaaro Farmaajo futa u salahayn ma inuu ku xaaro wayna u suurta gali weysi Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninkii laba faras fuula asay futa dilaacda Farmaajo laba faras fuula maaga dib weyn baa ka soo gaaray Farmaajo mustaqbal dambe oo siyaasadeed malaha aniga qoran Farmaajo waxay la tahay laba arrimood labaas arrimoodna waxay la tahay inay u suurta galin aniga qoran Farmaajo wuxuu aaminsan yahay sixirka iyo falka iyo curaafaysiga ayuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay Farmaajo inuu curaafaysi xilka dib u laaban doono dadkana ku seexin doono kuna sii joogi doono oo dib loo soo dooran doono ma dhacayso Farmaajo wuxuu aaminsan yahay in dadka Soomaaliyeed ay sida umusha yihiin oo loo shaqo yihiin oo wuxuu bixiyay oo dhan looga iska iloobay oo looga tagayo
laakiin way kala duwan tahay markuu nin hawiyaha rag nin hawiyaha dilay oo weeraray xasan sheekh ninkii leeyahay axmed daaci weeraray oo xasan sheekh mataqaa wariyaasha bay la xirxiray oo xasan sheekh wax mataqaana wax dembiga geystay iyo marka maxamed cabdullaahi farmaajo oo falkaas geystay way kala duwan tahay oo waxaa keenaysa waxaas kala duwanaanshaha iyo wixii colaadihii kasoo dhexeeyay qabiilada marka ani waxay ila tahay maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahan smart ma maxamed cabdullaahi farmaajo legacy xun buu ka tegey wuuna ka tegayaa wuuna ka tegey waxay ila tahay maxamed cabdullaahi farmaajo inay maalmihiisu tusan yihiin 1 2 3 4 5 qof maalmaha loo tiriyana وسيقى ياسك تاسية صادقت دوحان لي هاي ما أنت هدات شري فرماجي نبكو قبت فرماجي وكو داي من كدو عيسنا إله يرب يومدنا من نوكين بس وحان أنا إله فرماجينا نافي كريم وخير كويك هذا أنا وحان قوائنا كدو عيسنو وادب توني ما كستو حاجة جنيه إله وكان نافي متكو حنا نوي ماذا كان نافي متكو حنا أنا وحان قبنا نين دين له وأخلاق له وودنية والصومالية oo ilaahay hanoo keeno inaan ku duceysano nin wanaagsan waxa la yiraahdaa ummad hoggaan xun iyo qoys hooyo xunba meel xun bay ku dambeeyaan qoon oo hoggaan xun oo hogaamiye xun leh iyo qoys hooyo xun leh labaduba barbaarintooda iyo hanaqaadkooda waa baaba marka anaga hoggaankiina dad fiican baa Soomaali waxbaan wada cunaa waa ishaxadna anagoo dakana qabnaa isla joognaa wax kasta waa iska caadi laakiin hoggaankiina naga xumaaday waxaan qabaa aan ku duceysano inuu Ilaahay hoggaan fiican siiyo tagalla Soomaali waxa la idin rabaa farmaajo tagi dad baa jira Soomaaliya activistiyaal ka shaqeeya nabadda dadka Soomaaliyaal ah dadku u gargaara دور مغلقات حقوق الإنسان قدوده وعلى رواقف كصومالي هي وناجي وسميه إن لو أمانه قفك وناك وعام بحسد حاوى عبد المرود اللي يجري لونه على استقدامتي وكره إن لا سميه أستان قرر لا سميه حاوى عبد وكره إن تعسيق القية أي قود السي وجرجاتي وعلى دون النوع عاسة علما على أحمد حاوى عبدي استهلين عبد عروش وحنا رواقف النوع عاسة إن نقسمينا أستام قرن oo ah inay ahaayeen dadkooda u soo shaqeeyay hadii ay tahay qofka markuu dhinta kadib dalaga ma laha qof kasta wuu danaysan doona waxaana ka imaan doonta dhaqan xun baa ka imaan doona sababtoo ah abaalka waa in la celiyaa qofka qof Soomaali u gargaaray qofka qof Muslim u gargaaray qofka qof bini aadan u gargaaray gaali muslim raba ahaaday wuxuu la mid yahay qof adigu ku gargaaray saadagteed dad kasto qof kasta oo dalkiisa u halgamay adduunku wuxuu kaga tagaa taariikh aan duugoobin lagu xasuusto lagu xuso waxa fiican dadka aan siyaasadaha ku lugta lahayn ee wax qabad kala yimaad inaan amaano oo ku amaano oo ku xasuuno dhintaan dadka siyaasadda wanaagsan lagu hogaamiyana waxaan naga mudan yihiin inaan ku amaano oo aan ku taageerno oo dhahno hebel waad mahadsantahay hebel waa mahadsantahay waxaan kala rabnaa inaan gabdhaha la yasin gabdhuhu raggu waa tuuga u badan yihiin raggu danaystayaal bay u badan yihiin raggu guskood la ciyaar iyo calooshad la ciyaar bay u badan yihiin waxa aniga ila fiican in aan gabdhuhu inay maamulka sare dalka qabtaan aan ku taageerno oo gabdhuhu aan fiirno balkaarintooda ragana hay ونورسي ونغمغ أبسدي ونبركي لرشي بالشدا قم نصيب حنبي ونغدين هرمو ركنا حي لغنا حواي ركنا حي لغنا حواي ونورسي ونغمغ أبسدي ونبركي لرشي بالشدا قم نصيب حنبي ونغدين هرمو ركنا حي لغنا حواي ركنا حي لغنا حواي معي صدي نقلع صدين
naaskii hashay gaaruugayaan dadna naabayay ku dul nool yihiin laga naaxay laga naaxi waayey laga naaxay laga naaxi waayey waa nacab qarsoon ka naxayngayga waa nacab qarsoon ka naxayngayga nacasiya duqmay ina moodayaan nacasiya duqmay ina moodayaan laga naaxay laga naaxi waayey laga naaxay laga naaxi waayey nabad lagu nastay inoo diidayaan nabad lagu nastay inoo diidayaan naxli iyo qolay nagu beerayaan ina laysnacay nala doonayaan laga naaxay laga naaxi waayey laga naaxay laga naaxi waayey waa naaqus yar waxba aan nacayn waa nimanka madhan naxariis islaam waa nimanka madhan naxariis islaam naana isxun bay nasabka u baxsheen laga naaxay laga naaxi waayey 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 daara cali sacuudi leeyahay saddex maanka ku haya waa dad yartaa dir loogama tago waa dunya badanta deeq loogama tago oo way da'weynta dumar loogama tago dabashuna geedaha madaxda inay ciyaarsiiso ha biqlayso laga naaxay dalka naaxi waayey waa nacab qarsoon ka naxayngayga nacasiya duqmayna moodayaan laga naaxay dalka naaxi waayey naaskii hashay gaaruugayaan naxli iyo qabiil bay noolaynayaan in laysnacay nala doonayaan laga naaxay dalka naaxi waayey waa nacab qarsoon ka naxayngayga nacasiyo duqmayna moodayaan laga naaxay dalka naaxi waayey laga naaxay dalka naaxi waayey nimca iyo saday naga leexsadeen naaskii hashay gaaruugayaan dadna naabayay ku dul nool yihiin laga naaxay dalka naaxi waayey nolol inaan helay noo diidayaan naxli iyo qolay nagu beerayaan waa naaqusyo waxba nacayn waa nimanka madhan naxariis islaan naana isxun bay nasabka u baxsheen laga naaxay laga naaxi waayey waa nacab qarsoon ka naxayngayga nacasiya duqmayna moodayaan laga naaxay laga naaxi waayey